qalbiga ayay kaa jebinayaan, waxay kaa tegayaan sabab la'aan. waxaad ka dooratay dadka oo dhan, waxaad aamintay in badan, waxaad u ahayd daacad, waxaad u hurtay naftaada, waxaad u samaysay wax kastoo aad awooday, laakiin wax kale iyo meel kale ayaa u muuqatay mar kasta. waxaa kugu soo haray su'aalo aad u garaacaya maskaxdaada sida mawjado bad oo buur ku dhacaya. waxaad isweydiinaysaa, maxaan sameeyaa, ma isku filanahay, sideen ku hilmaamaa? ogsoonow, waad isku filan tahay. waad ku saxnayd in aadan naftaada u qiyaamin qof aan kala saari karin quruxda rasmiga ah iyo mid khiyaali ah, aan kala garan karin wanaag iyo xumaan, wax dhalanteed ah moodaya wax dhab ah. marnaba ha u ciqaabin naftaada qaladaad qof kale sameeyey, ha u baabi'inin noloshaada qof aysan ka goonayn in uu la wadaago. waad ku saxnayd in aad qalbigaaga u furtay. xasuusnow, waad ka bogsanaysaa kana koraysaa xanuunkan. waad hilmaamaysaa wixii aad soo martay. waxaad baratay cashir weyn, waxaad tahay waay arag. samee wixii wanaag ah, xoogga saar waxa naftaada horumar u horseedi kara. isku mashquuli wixii sax ah, ka faa'iidayso fursad kasta. ha furnaado qalbigaaga, ku ducayso beddel khayr qaba in Alle ku siiyo. cafi una ducee iyagana. marnaba ha ku fikirin inaad xumayso ama aad ka aarsato. ogow, waxaad is-aaminteen xilli aad isku dhoweedeen. ma lagu jebin karo haddii aadan adigu isdhiibin ama dhulka isdhigin. ogsoonow, hadda dhaawac ayaa tahay, laakiin kuuma dhammaan oo waad nooshahay.